arrimaha dibadda oo kale wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya kulankii ugu dambeeyay Djibouti ayuu ka dhacay bal kulanka ugu dambeeyay sidee u dhaceen sidee waxa te wuxuu ahaa kulan aan midho badan ka dhalan laakiin isku afartay in bishii bil gudaheeda isku soo noqdo shircadu ay bil gudaheed ma ay dhicin te isku ma soo noqon anagu diyaar baabur iska hayro waxa maana diidanayeen te qolooyinka kale aan ku soo noqon halkaas ka dhigay ka maarmay kulankaas intii uu socday maalintii xigtay waadiga aad sabab ka degay oo shaxay heshiiskiisa afkarada ee idinkii Itoobiya wada gasheen haye ma wuxuu ahaa maxsuulka shirkaas mise hawl hore u soo socotay waa hawl maalin dhalta jirta qorshe socday oo Soomaaliya Itoobiya wadeen oo muddo dheer laga soo fiirsanayay marka heshiiskaasi shirkaas waxba kala xiriir shirkee markii macnaha shirka wuxuu dhacay heshiiskaasi maalinkii ka dambeeyay shirka idinkoo Djibouti ku sugan Djibouti ka dushaad sabab tagtay dadka qaar baa warkayay sidii shirkaad ku kala kacdeen kadibna falcelintii Somaliland ay ahayd in heshiiskaas la galo ma yahay ka Djibouti shir caadi ah kana shir caadi ah isku xidhnay ka Djibouti wax khilaaf ah weyn oo loo doona kama dhicin abar bala ereyada isku celiyo waxa la yiraahdaa marka bacd isku soo noqono iyadoo waan la gaarin marka ereyada la isku celiyo maxay ahaayeen dhinacyada khilaaf ka taagnaa dadka wada hadlaya soo ereyo badan ku marmaa erey un buha adna adag tahay in wari oge Somaliland xurrimadeeda ninna kabraysa waxay doonaysaa inaad ictiraafto Xasan Sheekh xasan wuxuu leeyahay Soomaali kala jaray maaye waa iga mid ahaanaysa intaasna meel walba taala intaas ay isku fahmayeen wadahadallada haddii dib lagu doorto muxuu yahay qorshahaagu Somaliland iyo Soomaaliya wadahadalladaas Soomaaliya iyo Somaliland waxay ila tahay wadahadallada waa lagu daalay 12 sano soo socdeen 12 sano meedhal been qowa laba ra'yi baan kala taagan iga mid baa tayo dawladda madax banaan baa marka anagana wax wanaagsan inaan taayada ereyno sharci caalami u doorano ona cid u xanaan iyaguna inaanay faragelin ku sameeyeen haddii dadku ay ka tashadeen halkeedu waa intaas marka miyaa sii wadi doontaan mise waa haddii loo baahdo haddii ugu baahdo diyaar baan u ahaan marka idinku mar walba diyaar baatiin heshiiskii safkarada Itoobiya iyo Somaliland January bay xilligii la saxay bal halkee wax marayaan heshiiskii adayga waran qoladii wariyaasha warboobka wax kale oo ka shaqeysaan maanta xagga jirtaa maanta xagga jirta laakiin anigu intaan awgeeyay halka jirtaa ku sheeg halka wax maray halkii uu yaalay wari lama saxin heshiiskii afkar isfahamkii uu taagay waxaana loo qolo waliba ka fiirsanaysaa oo loo wadaa goortii la saxi lahaa inuu dhamaado muxuu hakaday buuq badan baa ka kacay cadaadsadii Soomaaliya ay Itoobiya saaraysa baa saameeyay hakashadiisa 10 bilood baa imika laga joogaa qorshii horna waxa in muddo hawsha ay ku hirgeli doonto war waxa saameeyay ada sheegi doonee laakiin waxa ka kacay buuq badan garta cuyub uma taqaana cuyub una garta cuyub una ma taqaana dadku way garanaysaa oo garta kale aragteen kale cuyub baa loo noqaa Soomaa meel loo joogo baa laga fadkiya Xasan Sheekh waa dagaal cilaamiyay oo qolada Itoobiya isku qaaday mashkalada MOU iyo dhexyaal adan ku weydiinaya dhinacyada ay saameynaysa dabcan kuwii ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay tayo wariyaasha xeerkiin waxa weeye anagu waxba kama joogno adigu hadalay dhageyso Xasan Sheekh Itoobiya isku qaaday Itoobiya cid beeshiis la gashay Soomaaliland xasan wuxuu Soomaaliland ma aqaano ma arkayo waa qoryaro aniga kamid ma hadla kara waxna weydiin maayo Itoobiya ay maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga waad boobisaa ku daray qolooyin kale laga fiirina way ku dareen marka Itoobiya anaga wada ninka wax ka qaba anaga ana Soomaali wada ah dhulkan uu sheeganayo Soomaaliland ka hadlayana mana iman karo kamana taliyo uu ogyahay afaristo sano kala madax banaan noorina ogi hatta kalaba dawlad baan aba kasta de marka dagaal baa la aloosado Masar baa timid oo buuq badan baa la abuurayo waxaan maraynayaa inay taas dheeraadahay xal aanay noqonin macnaha heshiisyada difaaca Soomaaliya galaysa ay la galaysa wadamada kale ma xal noqon bayso dhul aan xukumin oo haysan buray aniga hal soo weydiin
aniga aan bixiyo waan ku dhulkiin shaqo isku marihiin halkaasaan kala joognaa afragaadiye ceeb iyo colaad mooyaane inuu soo diro mooyaane dee halkan dhulka kama bixin karo mana xukumo kolku intaa rumaysto haddii anigu wadahal nooga bahdo waa halkeeda midna dee waaba khaladoo xasan sheekh annaga nagu warmaayo soomaali ayaan la jeclaynaya dhul baa xabasho la siiyo dhul baa la boobaya ergaas oo delqaaf kolka cidda soomaali shanta isku baaqday ee xorriyadeeda u bixisay ee dagaaladii 46 7 culayska u weyn ugu dhacay iyadoo soomaali shan soomaali raadinaysa waa Somaliland teena waxaabay dhashay in horta Soomaalnimadiiba la yiraahdo Somaliland waxay ka baxaysaa Soomaalnimadii hawshada dabada la gashado markii bay siinaysaa waxaas laga hadlaya xamar iyo laga hadlayaa dadka jooga waxa yaab leh noolu halkiisii ku nagay Ethiopia qayb badan Soomaaliya ka mid waliba anaga nagu canaata maxay Soomaaliya maxay Ethiopia u heshiiyeen marka leedahay aniga kaliya Ethiopia loo macaamilo cid kasta la macaamisho hadda Soomaaliya way dhigayso maraba cabra kuwaas oo ka mid waa Ethiopian Spain xalay oo dowladda ka mid yihiin waddanka ka mid yihiin haddana anaga nagu maagan qaarkood oo wadahay hawshada wax la galeen oo waa gaaloobayaan bay qaarayaan culimo hadda isagoo halkaas soo jeedo oo Ethiopia la macaamil oo waxyaalahan macquulka ah in lagu hadlayo haddii shan Soomaalida doonaya ama Soomaali rabana dee annaga horumar ka ahayn ilaa intii xiriirada qatay xig Soomaaliland ma ku dulmaray kol dagaal hal geliyo kol dagaal hal geliyo shanta hal ilaa soo haaso tii hadduu walaalkiisii jeclaaday tan halkayga waa marka haddii ay doonayaan inay nabad iyo walaaltinimo ku noolaano dee xaqiiqada soo harrumaysan oo haymaad laba walaalay nahay sixiradan soo nimid waan kala tagay waa ay sharci ku siinaya adigu kaliya inaad sheegato qaybtii dawladda xeerka laga dhixay ee qoyskaas ka dumay haddii cid adeegsanayso dawladda muqdisho maanta la adeegsanaya Masar baa adeegsanaysa dagaal bay soo raraysaa biyaha webiga ka dhaxeeya in la soo celiyo waa kan laakiin waxay ku doodeen iyagu dawlad sharci ah oo anagu heshiisiye sharci ah waa sharciga haddii Ibrahim aad waxa ka tiridaa haddii sharci yahay intuu sharciga u yahay ku ekaado inta aanu sharci aysan maxaa ka galay imana kari laakiin sharciga waxay sheeganayaan Soomaaliya ilaa Soomaaliland iyo ninka ictiraafay isaga jirta anaga hadda kula jaamac la yiraahdaa tii cali bixinaysid halkan jooga kolka sharcigu sheeganaya waa maxay adna waa adoortay kuwa ictiraafsan oo ogi in halka shaqo ku hayo laakiin dan le ayaa xamar dagaal soo galinay toddobaadkii wixii naga gaaray waqti Soomaaliya hadda dagaalkii tii Masar baa dowladda naga raxisay oo marna nagu abuurisay Soomaalida laga xoreeyay Ethiopia ujeedaduna ay ahayd biyaha Niilka dagaal ka socda kii Afrika la mid marka maanta aqliyada oranaysa Masar baan soo karaysanayaan cid la saxayaa oo Soomaaliland ay qabanaysa dacwad sax ma Masar ma lahayd taa gaar kalmayso teedii tabcan la taade wada yarkay rideed wax ka dhacaya xooga ay Soomaaliland iyo Soomaali ugu qabanaysa Xasan Sheekh teedii baa marka xaqiiqadu waxa weeye looma jeedo MOU xasana wuxuu doonayaa in dalka xoog cid ugu qabato haddii imika Masar ay dagaal kaba gasho sidaa waan ku qabanay Soomaaliya marka waxa la 10 sano bay soo gaar 20 sano bay soo gaarmayso horta kuwa u dhalow bay qaban lahayd bay dhaba iyo gaalka cayya iyo soo reebiyo horta kuwa u talis marka heshiisyada difaaca Soomaaliya galaysa ka Soomaaliland waxa aragtaan in la rabo in idinka Somaliland awood lagu soo qabto kale ma awood maaha rabitaanka dadkayga in xoog lagu joogsado taasina suurtoobayso Soomaaliland waxay doonaysaa karmutay waxay ka mid tahay xadadkii Afrika oo EU charterka wuxuu fadhiyaa in isticmaalka xadadkiisa Afrika ku kaato xitaa qura loo diiday waa Soomaaliland yaa u diidan oo akhriyana arifka halkeena sharciga oranayo ma kala bixi karo lixdan ku heshinaa keen halkeena sharci uu leeyahay in aan warigin anigu idin tarayaaba la gooyay lixdan aan saxaa keen maxaynu ku heshin shantii su'aalaad aan doono inaguna saliga noqon wax kala wala isku weydiin kolka maanta awoodan uu la wareegsanayo waxa dadkan uu goynaya murankan uu si dheereeray
colaadana uu seereeray Soomaaliland ciidana rabitaankeeda ka bedeli mayso marka waxaad leedahay cadaadisyada ay Soomaaliya Ethiopia heshiiskan saarayso maaha wax la joojinaya iyaga ka dhaxaysa arrin Ethiopia Soomaaliya dhexgelin haddii Ethiopia iyo Soomaaliya heshiinayaan ya hadday hadlayaan iyo hadday iscaadeen waa iyaga ka dhaxaysa anigu waramahay wax ka dhaxeeya anigu waxaan ogahay dagaalka alooska maxaa la African Arab League iyo cali ay ku heesayaan inay tahay in Masar loo heelinayo biyaha Niilka dagaal ka socda na dhexgelinayo annaga iyo Soomaaliya ahayd oo dhan kaan u baahnay teeni waa ka cus shantan federaal oo hayo bal iyaga horta soo gacan galiyo heshiis noqday 10 bilood baa laga joogaa heshiiska xilliga la saxay January bay ahayd xilligaad saxdeen qorshuhuna sidii hore wuxuu ahaa in hal bil hawsha lagu hirgeliyo oo heshiisada caalamka ma socdo maxaa keenay baashinka heshiisada caalamka ma socda how many years 10 20 4 ka dhig waxa ujeedada fog loo istiraatijiga oo waqti badan bay qaata marka adu waxa loo saxay maxaa loo oranaysaa waa caalami xagga iyaga heshiiskayga dheer oo annaga amrumayno oo wax isku diidan cid kale oo caalamka waxaan ku jirta heshiis waqti bay qaataa laakiin badanaa waqtiyada waa la sameeyaa idinka kan maxay tahay sababta ilaa hadda uu u hirgeli lahayd sababta adaa journalist oo investigative BBC aad buu xor baraa soo helay adaa sheegi doona cadaadisyada Soomaaliya ay saarayso Ethiopia qiimo ka yihiin baajinta falada adaa geli doona marka waqtigiisu qaadanay laakiin waxaa idinka su'aalaha bal ii soo helaan ka faa'iideystaa wixii meesha ku jiray idinka Soomaaliland waa goorma ku mudaysan yahay hirgelinta heshiiskaas heshiiska labada dawlad baa ka sheegtay saxiixaya oo xilliga waqtiga waa isla gartaa hadiiba ay dhacdo suuragalnimada Ethiopia ka noqoto qorshihiina muxuu yahay Soomaaliland hadday ka noqoto maxaa ku jira soo imsaash baa la kala noqon maxaa dhibaato maxaa Soomaaliland soo gaaray heshiis baa la galay iyadoo oo waxaan ugu soo xagee anagu isla garan weyna akhirka kan meeray labada heshiiska ugu dambeeya laakiin midkii uu socdaa marka hadii la kala noqdo waqti inta heshiis baa la holiyaa laga tagaa xuna yeelay anaga heshiiskaas aad baa loo hadalay warbaahinta iyo shacabka Soomaaliland dabcan wax badan kama ogeyn maxaad uga sheegi kartaa bal waxyaalaha heshiiskaasi si gaar ah u saaray madaxweyne markuu heshiiska galay si bandhiga qoladii wariyaasha shacabka iyaga waa loo sheegay wixii ka soo baxay fariinta bal inta ay tahay shacabku inay hadda ka ogaadaan aad ugu tala gashay maxay tahay loogu sheegay shacabkuna hore waa aqbalay 190 oo maxaa kamid ah waxyaalaha u sheegteen wuxuu ku saabsanaa adduunka dhan baa la bandhigay baldeeda meesha YouTube ka baarmaan xogta warbaahintu haysaa waa in heshiiskaasi ahaa arrin badeed deegaanku ma cadayn waxyaalahaas oo kale intii lagu sheegay ayuunbaa dee ku firan wixii kale raadsa adu xaq baad u leedahay inaad baarbaadho oo taabal wax soo saar intaa lagu sheegay unbaa iba ku egtay idaacaddu sii daysay galabtiiba kowda bisha bisa sii daysay halkii uma taal